tixanaha naga afaraad ee maanta waxaynu kaga warrami doonaa dhamaadkii xukunkii Masar. Masar waxa ay xukumaysay Nubiya ku dhawaad 5 qarni laga soo bilaabo 1550 ilaa 1960 waxa ayna si guul ah isugu geysay dhammaan gobolka hoos yimaada maamulkeeda. kordhinta dhulalka boqortooyada Masar waxa loo tixgelin jiray waajibaadkeeda boqornimo. Fircoonina waxa uu ku qasbanaaday inuu boqortooyooyinka dariska ah la galo dagaalo kuwaasi oo ay ujeedkoodu ahaayeen dhul balaadhsi. waa suurtagal in ay taasi ahayd sida ay Nubiya uu xukunkeedii u hoos yimid, laakiin muddo kordhintu waxa ay kaliya ku ekeed marinka biyadhaca afraad ee webiga Niil. waxa ayna u eg tahay in Masaarida ay lumiyeen dantii ay ka lahaayeen qabsashada dhulal kale, inkastoo ay jiraan cadaymo xoogan oo muujinaya dacayada ka dhanka ah boqorada maxalliga ah ee koonfurta fog. Masar weligeed ma ay qabsan dhulkaas oo ay si buuxda u maamusho. tani waxa ay noqon kartaa waajibaadka boqornimada ee qabsashada dhulal cusub iyo dib u celinta cadowga dawladda. looma tixgelin inay tahay mid muqaddas ah. tani iyo xukunkii Ramsaskii saddexaad 1186 ilaa 1154 inkastoo ay Nubiya ay si fiican ugu milantay dhaqanka Masaarida, gaar ahaan farcii sare ee taliyayaasha asaliga ahaa. dhulku waxa uu la kulmay heshiisyo wanaagsan ee haajabhadayn. waxaa jira diiwaano ku saabsan kacdoonno badan oo dhacay intii u dhaxaysay 1401 ilaa 1186. ma jiraan wax caddayn ah oo soo jeedinaysa sababta jabhadahaasi loo aasaasay, laakiin waxaa jira isku dhacyo military oo ka dhacayay dhulka Nubiyada hoos yimaada ku dhawaad taliye kasta ilaa iyo boqortooyada 20aad. culimada casriga ah ee taariikhda waxa ay soo jeedinayaan sababta qaar ka mid ah iska horimaadyadaasi laga yaabo inay tahay in Nubiya ay ka cagajiidaysay inay lumiso xakameynteeda goobaha laga soo saaro dahabka. dhamaadkii boqortooyadii 20aad ee Masar waxa ay faarujisay iyada oo u baxaysay qabsashada Nabata iyo xarumaha kale ee dhaqaalaha ee koonfurta, taas oo ay gacanta ku hayeen taliyayaasha asaliga ah. inkastoo oo joogitaanka Masaarida uu hoos u dhacay, taasi macnaheedu ma ahayn in Nubiyada sare ay heshay madax banaanideeda. waxa ay u muuqatay in taliyayaasha maxalliga ee Nubiya aan loola dhaqmin sidii kuwa Masaarida oo kale. si ka duwan amiiradii Liibiya iyo Bunteti, qaar ayaa aaminsan in bixitaankani Masar uusan ahayn go'aan degdeg ah oo ka yimid Fircoon, balse uu ahaa mid tartiib ah. markii loo eego aragtidani waxa ay ahayd Ramsaskii saddexaad oo u soo ruqaansaday dhanka waqooyi, isagoo abuuray xuduud cusub oo koonfurta ah ee Kawa. kadib Ramsaskii afraad 1144 ilaa 1136. si kastaba ahaatee waxaa jiray caddayn ah in goboladu ay weli ku hoos jireen awoodda ku-xigeenka xitaa xilligii xukunka Ramsaskii sagaalaad 1125 ilaa 1107. laakiin weli lama oga in Masar ay si nabad ah xilligaasi dib uga guratay ama ay sabab u tahay gardarada dadka asaliga ah. xitaa jahawareer badan ayaa soo baxay sababtoo ah Masar waxa ay ka baxday Falastiin isla xilligaasi. tani waxa ay keentay in la ogaado in awoodda siyaasadeed iyo dhaqaale ee dabayaaqadii 20aad ay hoos u dhacday. iyada oo ay taasi jirto, dawladda dhexe ayaa dicifnimo ku timid. waxa ayna ahayd waqti uun ka hor inta uusan dib ugu soo laaban qaab dhismeedka dhaqanka siyaasadeed ee asaliga ah ee Nubiya. waxaa jiray caddayn qoraal ah oo aad u xoogan, taas oo muujinaysay dagaalo sokeeye oo ka dhacay gobolada ku teedsan magaalada Thebes. iska horimaadku waxa uu ka dhex qarxay Bani Hasi, Viceroyga Kush oo la odhan jiray Nehi iyo Amenhotep ee ahaa wadaadka sare ee Amun ee magaalada Thebes. sababta isku dhacyadaasi lama garanayn, laakiin waxa ay muuqatay in wadaadka sare uu ka carooday oo si degdeg ah ay uga soo muuqatay awoodda. Bani Hasi waxa la siiyay maamulka militariga iyo baqaarka agabka militariga ee boqortooyada, kuwaas oo calaamad u ah awoodda siyaasadeed iyo dhaqaalaha. ilaa waqtigaasi
waxa ay ku jireen gacanta Amenhotep. Iska hor imaadku si weyn ayuu u kordhay markii ciidamada Beni-Haasi ay bilaabeen inay bilaqaystaan macbadyada Thebes, kuwaasi oo ahayd inay ilaaliyaan. Ku-xigeenka waxa uu ku riyaaqay xakameynta uu ku leeyahay gobolka Nubia. ficilkiisuna waxa uu abuuray dareenka sidii uu ula wareegi lahaa Masarta sare iyo dhexe. Amenhotep waxa uu u caawaday fircoonkii Ramsiskii 11aad, waxa uuna ka helay taageero difaac ee ka dhan ah Beni-Haasi. boqorka waxa uu ku amray taliye ku-xigeenka inuu ciidamadiisa ka raro Thebes, laakiin Beni-Haasi waa ay kacday oo waxa ay bilowday jabhad, taas oo sababtay in gobolka oo dhan uu ka dhaco dagaal, abaaro iyo gaboodfallo kala duwan oo ay geysteen ciidamada militariga. sanadkii 19aad ee boqornimadii Ramsiskii 11aad ee Masar, Beni-Haasi waxa lagu qasbay inay dib uga gurato. maanta halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa tixanaha afraad ee barnaamijka aynu ku taariikhaynayno boqortooyada Kuush. anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idinlana socodsiinayay. inta maalinta xigta iyo tixanaha shanaad aynu kaga kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.